inkastoo xaalka Premier League kooxo la taagay kuwa taagan iyo kuwa loo taaglaya iyo kuwa ay taageeraan tiigsade xaalkoodu yahay uu iminka joogo misana habeenkan oo kale waxay u ahayd dhoolla cadeyn qoorweyntii habeenna ka hor kuftay Arsenal inay sidan ahaato waa laga wacnaa Liverpool se dhoolla cadeyn tijaaba ayay u ahayd markaynu si guud u carabaabno waxyaabaha sida gaarka u carbisan waxay ahayd ciyaar guud ahaan liidatay dhanka tayada jaanisyo fiican aan la abuurin weerarro istaba joog aanay jirin hamuun guuleed kama muuqan labada kooxood midna Liverpool baaba ahayd kooxda u ekayd midda u baahida badan guusha qaybtii dambe oo isku dayeysay dhanka Arsenal bandhigani waa mid dhaleecayn mudan koox bandhig ahaan hooseysa oo daalaa dhacaysa inaad gurigaaga kubad muxaafida kula dheeshaa waa dhaliil weyn oo uu qaadanayo macalinkan foodheeraha ee Arteta Liverpool waxa ay tabaysay weeraryahan dhexe balse Gyökeres ma hogaamin karo weerarka Arsenal isaguna haddii ay horyaalka rajo ka rabaan ragga kale fursad ha la siiyo oo mindiyahooda gadaal fadhiya ha tijaabiyo Arteta balse taasi waa macalin fulaynimada darajada kabtanimo ka haysto taa kuma dhici karo guud ahaan kulanka sidii caadada ahaydna aynu dul istaagno kulankii ugu xiisaha badnaa wareegga 21aad ee horyaalka Premier League ayaa ku dhamaaday barbardhac gool la'aan oo taageerayaashu aanay marnaba istariix dareemin kaas oo dhex maray kooxda hoggaanka haysa Arsenal iyo martidooda Liverpool oo ahayd kooxda difaacanaysa horyaalka balse markan sidii bidaartii ay sibiq xaalku ka yahay ciyaartan oo ka dhacday garoonka Emirates Stadium ayaa u muuqatay mid xeelad iyo iska caabin difaac ay ku dhisnayd natiijadan ayaa Arsenal ka caawinaysa inay dhibcaheeda ka dhigto 49 iyagoo hadda 6 dhibcood ka sareeya kooxaha Man City iyo Aston Villa oo min 43 dhibcood leh kadib markii labadaasi kooxood iyaguna ay dhibco lumiyeen toddobaadkan Liverpool ayaa dhankeeda gaadhay 35 dhibcood waxaanay weli ku jiraan kaalinta afraad daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markay 90 kor u dhaaftay daqiiqadii saddexaad ayaa isku bedelay buuq iyo gacan ka hadal dhex maray ciyaartoyda labada kooxood waxay ka dhalatay kadib markii xidiga Bradley uu ku dhacay garoonka iyadoo Gabriel Martinelli uu kubadda ku laaday xidiga dhulka yaalay kadibna isku dayay inuu xoog kaga saaro garoonka arrintan ayaa keentay in kaadhadhka digniinta la siiyo Martinelli iyo Ibrahim Kanote reer Buuqsiraate ayayna ahaayeen daqiiqadaha kooban barbardhacan ayaa muujinaya in tartanka horyaalka ee sanadka 2026 uu yahay mid aad u adag iyadoo Arsenal haysato fursad weyn oo ay ku hanan karto koobka haddii ay sii wadato joogtaynta dhibcaha halka Liverpool ay hadda xoogga saarayso sidii u xejisan lahayd booskeeda Champions League oo xaalku inay tartanka fikta sare ahaato imtixaan adag ayaa uga yaala haddaba kulanka aan si gaarayso dul taagno 9 shoot oo 90 daqiiqo tuurtay Arsenal ayay ku aadisay kubadaysashadu waa 8% 457 baas oo ay kulanka sameeyeen 390 ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday taasina dhoolla cadeyn uma noqon 11 tackle 10 foul iyo 3 corner halka Liverpool ay 8 shoot tuurtay waxay goolka ku aadisanaanay jirin kubadaysashadoodu waa 250 506 baas oo ay ka hirgaleen 450 baas oo igu sawira 10 tackle 9 foul wax koorna oo ay kulan ka heleen haba yaraatee iyana may jirin inamada reer dhaka salax xidigaha markaynu si gaarayso dul taagnay iyagana Gabriel Magalhaes 104 taabasho 2 shoot 93 baas wax taa kala muusaban Darblin looma diiwaan gelin hal loolan oo kaliya direction of play-ga kulankana waa dhibcahan haruuda oo mid meel kastaba taagan oo daaqaya ayuu ahaa balse macna aanay samaynin sidoo kale xidigan lagu hodmay ee haadaanta noqday Victor Gyökeres isaguna 8 taabasho 7 baas wax taa kala ha sheegin Darblin haba maqlin loolan haba ku xisaabin dhibcihiisu waa intan direction of play-ga afarta goobood garoonka ka istaagay waa intan oo kaliya oo ku muuqata in xidig noocan oo kala oo koox noocan u ciyaaraya inuu sidaas oo kale looga diiwaan geliyo may habooneen 42 taabasho waa Martin Odegaard wax shuuda muu samayn 35 baas wax taa kale ha sheegin Darblin haba qorin loolanna haba ku xisaabin oo ha ku darin direction of play-ga headmapkiisuna waxa uu ahaa mid ka idin muuqda Tracer wasamata bixiyay gurmadka degdega iyo xaqiijiyihii nasrigii lumi jiray habeenada qaar balse habeenkan muu ahayn wuxuu ahaa mid busto qoyan la saaray
32 taabasho 2 shoot 15 baas 2 tackle 1 dribbling iyo 5 loolan oo guuleystay intuba iridda hore ee kooxda ayay ka dhaceen direction of play-ga sida kaaga muuqata. Martin Subamendi 77 taabasho wax shuuda ha u qorin 67 baas 5 tackle iyo 6 loolan oo guuleystay direction of play-ga kulankana waa midkan xariiqaha dhaadheer oo inta blue guy waa intii gebi ahaan u hirgashay iyo intii loo baahnaa inta haruudayna waa intii khaldantay. fahamta calay shay kullu kalaam. Arsenal habeenkan laba mahadin sababtoo maxaa yeelay inay Liverpool oo xumadaysan jihada u dhigi doonaan maadaama qoorweyntii carcarta ku haysay ay kufeen oo isballaqeen ayaa la islahaa markan waa kuwa isbixin karaya. markaad halgamayso horyaalka hanashadiisana doonaysa inaad ku abaar baxdo xaalkani oo kale inaad ku wajahdo Liverpool oo miciyaheedu ay dhulka yaalaan ma yahayn inaad sidani oo dhan aad u dhaqanto natiijadaaduna sida tan ay noqoto. iimaan la'aanta hamuunta baahida waxaasi oo dhami deris inay kula ahaadaan oo derajada garbaha kuu sudan ay noqdaan ayay ahayd habeenkani oo kale balse may dhicin oo barbardhac ayay kala baxeen eberyebera xataa istijaabini. kooxda Arsenal habeenkan kumay qaadan oo goolo offside maynu arag waxay dugeedu daaqayaan oo hamuunta ku tusinaya wixii iminka ka dambeeya malaha dhallaankii iyo kooxii Premier League inay difaac u galaan kaliya Arsenal oo ay la qaataan inta dambana ayay ku dadaali doonaan war jiraana cakaaru iman sababtoo maxaa yeelay waa la kala guran ogyahay la kala goosan ogyahay laguna kala guulayso ogyahay xaaladdu markay January joogto sida la isu jabiyo yaan idhaahdaa haddaba tudnas fulatasiyon cidda may kasbane. Arteta fulaynimadiisa ayaa sababtay inuu hal dhibic la baxo kulankan. waxaan leeyahay wadna u soo iibiya kadib geliya inuu wadnaha ku dhaqaaqo oo noqdo ninku dhacle ayaynu arki doonaaye. kulankii kale xiisaha badnaayay habeenkani sida gaarka loo eegayay kulankii buu ahaa kooxaha Real Madrid iyo dhex maray Atletico Madrid. Real Madrid gool dirqi ayay ka gaadhay Atletico iyadoo isku xaadirisay finalka Super Cup-ka. guusha Real Madrid waxaa jidka u xaadhay Valverde oo daqiiqadii hore ee ciyaarta dhaliyay gool qurux badan oo laad xora. inkastoo Atletico Madrid ay abuurtay fursado badan oo ay ku barbarayn kartay ciyaarta haddana waxay ku guuldareysteen inay ka faa'iideystaan kulankan. Rodrigo ayaa markaa kadib ciyaarta ka dhigay 2-0 isagoo dhammaystiray kubad sax oo niyad jabisay Atletico. inkastoo Atletico ay markii dambe heshay gool madaxa oo rajo geliyay haddana ma aysan awoodin inay helaan goolka barbardhaca ilaa ay ciyaartu ka dhamaatay. natiijadan ayaa ka dhigan inay Real Madrid finalka la ciyaari doonto Barcelona maalinimada Axadda taasoo bandhigeeduna uu ahaa habeenimada kooxda Atletico Bilbao harageeda ku tukadeen kuwa hay kalaasa. waana markii afraad oo xidhiidha oo labadan kooxood ay isku arkaan finalka tartanka El Clasico. Barcelona waxay booskooda ka xaqiijisatay kadib markii ay 5-0 ku dardartay kooxda Atletico Bilbao habeennimadii Arbacadu baxaysay ee Khamiistu soo galaysay. halkaana miciyo libaax way isu afaysan yihiin Sacuudigana iyo Bariga Dhexena habeenkaasi waa loo kala bixi doonaa. haddaba hadalladii dhex maray xidiga Vinicius Junior iyo Diego Simeone oo iyaguna afya labadii daan yeedhay waa lagu caydhinayaa adiga ayuu Diego Simeone weerar aan gabasho lahayn ku qaaday xidiga Vinicius intii lagu guda jiray ciyaarta. idaacadda caanka ee Kobe ayaa ka shiftay inuu muran weyn dhex maray tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone iyo xidiga Real ee Vinicius Junior intii ay socotay qaybtii hore ee kulanka semifinalka Super Cup-ka Spain. sida ay warar ku sheegayaan Simeone ayaa hadallo kulul ku tuuray Vinicius isagoo ku yidhi Florentino Perez ayaa ku caydhin doona oo kooxda ka diri doona xasuuso inaan anigu kuu sheegay tan. muran dhex mara Simeone iyo Vinicius ayaan ahayn wax cusub maadaama ay hore dhowr jeer iskugu dhaceen kulamada Madrid derby. Simeone ayaa la sheegay inuu ka cadhooday habdhaqanka Vinicius iyo qaabka uu la xidhiidhay garsooraha taasoo keentay inuu tababaraha reer Argentina si toos ah u beegsado mustaqbalka xidigan gaar ahaan xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in Vinicius uu cadaadis kaga imanaya maamulka kooxda oo ku saabsan qandaraas kordhin. waxa kale oo la xuseyn Simeone wadahadal kooban la yeeshay Dani Carvajal markii ay u socdeen qolka labiska kadib qaybtii hore inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin waxa ay ka wada hadleen. isbedelada cusub ayaana sii kordhiyay xiisadda u dhaxaysa
labadan dhinac eheya Diego Simeone iyo Viniciusna Allah isbaday habeenkana galku seefta kala bax war qayaxan buu ku yiri adigoo lagu eeriyay cabdow ya cabdimadoobow adigoo lagu eeriyay oo cad ayuu ku yiri aan ka bashalahay marka habeenada ka tilmaana xaalkiisu isagana sida ayuu noqday PSG madaxa u degan sababtoo maxaa yeelay Trophée des Champions ayay winneriskooda noqdeen oo ay ku guuleysteen waa koobka Faransa Trophée des Champions loogu yeero 10 sano ugu dambeeyay abaya macmiil ayay ka ahaayeen hal maro kaliya ayay kooxda Lyon ay ka dhex gashay mooyaane 10 sano ugu dambeeyay koobkan abaya macmiil ayay u ahaayeen 5 sano isxigta iyo 4 sano u dambeysay waxay ahaayeen kuwa daldalanayay koobkan oo cid ka hor istaagi karta ma jirto Marsilia ayay harageeda ku tukadeen oo ay gool ku laadiyo ay kaga qaadeen kadib barbardhac la galay oo 2-2 eheya way taqaanaa iyaduna sida loo adeegto oo koobkan la isugu cimaamado todas Valatazione ayaanu leenahay reer PSG kooxdii Al Nassr ahayd mar kale ayaa harageeda lagu tukaday maryaha laga calaashaday iyadoo qalcadeeda joogta Ronaldo ama kaagya dhabanahays iyo qadad qabsi ayay kaga soo hadhay 2-1 baa lagu garaacay nimankii Al Hilal ahaa horyaalkii way hayaan 100% ayay 10kii kulan u horeeyay ay ku socdeen Al Nassr haatanse way fiishtaameen kileesh ka dhacay waana laga muquuniyay laakiin Ronaldo goolkiisii waa uu ku tuurtay haba ku tuurtay soo kan horyaalkiina tagay iyagiina garaacisu u bilaabatay maalmihii dhowl cadayntu inay soo gabagaboomeen ayaad moodaysaa xubintu waa kariskiya kala aadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike war hooy reer Arsenal sidan xal ma ah January waa lagu jiraaye iminkaba Arteta ku dhac yeelo oo rakeenso ku dagaalama ama kaydkaaga tijaabi si aad horyaalka sanadkan ugu abaar baxdo sida ayaa maana Allah